بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkiyo fidsan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland mudane Siciid Sulu Maxamed ayaa shirkado ganacsi oo ka shaqeeya xoolaha waxa uu kulan kula qaatay magaalada Riyadh ee caasimadda waddanka Sacuudi Arabiya. mudane Siciid Sulu Maxamed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxa uu socdaal shaqo uu ku jooga waddanka Sacuudi Arabiya gaar ahaan caasimadiisa Riyadh. kulana kala duwan oo la qaatay shirkado dhanka ganacsiga xoolaha ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha dhoofinta xoolaha iyo fursadaha ganacsiga xoolaha ee ka bannaan Soomaaliland. Siciid Sulu Maxamed waxa uu mas'uuliyiinta shirkadaha uu sharaxaad uu ka siiyay sida ay Soomaaliland ay soo dhaweynayso shirkadaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha xoolaha iyo dhoofintooda. waxaana wasiirku shirkadahaasi uu sheegay in Soomaaliland ay booqasho ku iman karaan si ay u dhandheeyaan suuqa xoolaha ee ay ka hanan karaan. mas'uuliyiinta shirkadahaasi ayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland uga mahad celiyay warbixinta uu ka siiyay arrimaha ganacsiga dhoofinta xoolaha Soomaaliland waxaana ay ballan qaadeen in ay wada shaqayn la yeelan doonaan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdixakiin Xirsi Jaamac Dhoobaale ayaa kormeer shaqo isagoo ku jiro hawshii inay gacanta ku soo celiyaan mar kale maamulka gobolka Karabakha oo muddo 30 sannadood ah gacanta ugu jiray dawladda Armeniya. ninka lagu magacaabo Hikmat Ajib ayaa waxa uu isagoo ah la taliyaha ugu sareeyay madaxweynaha waddankaasi Azerbaijan oo warbaahinta isagoo la hadlaya uu sheegay in tuuladii ugu dambeysay ee gobolkaasi ee ciidamada Armeniya ay ka baxaan ay sheegeen in 35 sannadood markii ugu horeysay ay tahay ee Azerbaijan ay arkaan magaalooyinka ay ku noolaan jireen. meelaha ciidamada Armaaniyiintu ay ka baxeen oo aad ay u burburiyeen ayaa wax kasta oo yaalay la bilaqaystay waxaana dadkii markaasi dib u tagay halkaasi 35 sannadood ee ka bacdi ay dib ugu noqdeen tuulooyinkii magaalooyinkii ay deganaan jireen oo aad isku bedelay. xukuumadda Azerbaijan oo hodan ku ah gaasta ayaa 100 milyan oo qarash ah waxay dib ay ugu dejinaysaa reer Azerbaijan oo dhulkoodii dib ugu noqonaya waxaana meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi ka bilaabantay dib u dhiska lagu sameynayo kaabayaasha aasaasiga ee nolosha aadanaha. dhakhaatiirta waddanka Ingiriiska ayaa la taliyayaasha hay'adaha adeega caafimaadka ee NHS loo soo gaabiyo waxay wada bilaabeen shaqo joojin ah muddo 3 maalmood mid soconaysa. in ka badan 100 dad ah ka shaqeeya kalkaalayaasha caafimaadka oo waddanka Britain ah ayaa ka qayb qaadan doona shaqo joojintan oo ah muddo 72 saacadood ah sida loo qorsheeyay. shaqo joojintan oo noqonaysa tii labaad ee sanadkan ay sameeyaan taasi oo dhibaato hor lagu ku keenaysa dhibaatada cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee waddankaasi Britain. dhakhaatiirtan oo badan ardayda sanadihii tagay bartay mihnada caafimaadka ayaa ka cabanaya faquuq iyo tacadiyo dhanka shaqada ah oo lagula kaco gaar ahaan saacadaha ay shaqeeyaan taasi oo si joogto ah u sii kordhaysa balse wax guna ah aan loo kordhinayn. ururka matala dhakhaatiirta ayaa xukuumadda waxay ugu baaqeen in degdeg ay wax uga qabtaan haddii kale cabashadu ay sii badan doonto taasi oo keeni karta baynay inay u tahriibaan wadamada New Zealand, Australia, Canada oo mushahar tixgelin lagu siinayo la siin doono. dawladdu waxay ogoshay 10% inay u kordhiso balse waxay doonayaan 35%. warkii oo kala socoteen radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland akhyaarta qiimaha mudan ee hawada nagala socdo dhageystayaal waa naga